weli weeyaan waad la socota heshiiska ogo waa aaminaadii baa luntay dadku markuuna dhul isku hayntu heshiiyaa moogtaa war isna qanin wuu doonayaa inna ka tag buu leeyahay wuxuu ku doonayaa gardaraa ilaa gardaradiisaasi ay maarata inay dhammaatana heshiis ma jirayayde ilaa uu garasado maarata ana dhulkan inaanu isagu lahayn oo uu iska garanayo lixdan jirkii baa garanaya soddon jirkusa ma garanayo mid laba halkaa jirtaa anuu dhulka weliga baan dali jiray dhulka weliga baan dali jiray haddana adigu isbogto marka hore haddaad isbogto oo adigu kaa tago iba qabashadeed way adkaataa soo moogid war ya aad iyo aad waxaan ku ogi maalinta dhawada ragga la yeelayo meesha halkan in lagugu layaa caari oo keeno waa in lagugu layo waa waajib waxaan ii sameeyey xuduud wixii halkaa ku dhinta ee adikaaga dhinta eernaas ku dhinta reer gudub baa jiri ya wixii halkaan maartaanay xagga falansiyeerkiisa ku dhinta eernaas ku dhintana adaa dilay buu yidhi soomaalgardaadkii iyo dabadeeda magaxsanayo reerkii wuxuu arkayaa jirjirka nabadii oonan cadaankii aana jirin waxaana diyaara sidaan u naqaanay inaan taqaani kaama maqna jiraa soomaalidu waan istaqaana reer kale oo dadkii dhalaya isku laqnaabaan inay midho macaani ka soo baxaan kama sugayno isagoo dee maamulka ilaahay iska leh oo arrinta sidiisuu uu qadaraa u dhacaysa hadan dabeecad ahaan kama sugayno midho macaani inay ka soo baxaan waayo arrintu waxay taagan tahay iminka inanka aad iga dishay inamadaada uu ka qiimo badan yahay diyaaruma ahan iyagu inay raggay layan boqolkiisi bixiyaan inay koodiina qaataan bay doonayaan kolkaa maxaa la yskugu iman soo xabadidu kama odhan kolkaa meesha adigu waxaa tahay bakay anna waxaan ahay libaax inankaygii libaax buu ahaa inankaagina waa bakayla xabaddan ku dayey maskaxdaasaa la isla dhaafsan yahay la iskuna diiday amaa laba libaax amaa laba bakayluu isku raaca maayo walaalahayow walaalnimadeenna sidaa waxayna aan ku gaadhaynaa isku duubnideenna ama aan gaadhna dee ama rag ugu khasaariyo faa'iido midunbuu helaaye ama aan gunyaha qubnaahay naga soo raacda meesha oo waxaynoo qubnaahay naga soo raaco ama aan wax helo arinagiiyo reer geedilayaan walaalahayow berriye aan cid iyo gaal yar inay inoo kala turjubaanayin aran isella berri aran isella walaalaheen berri on halkaa dadkaa ku wada hadal leh iyo hala dhaqaaqacaa dayaxa hala sii geeyo warka iyaanaan la weydaynin arrinta calaacal iyo qiiquutal daruurigii buu la'yahay dadka lala tegayey imika raashin baa la raray waxba ma gaadhayo waa la sii raray waxba ma gaadhayo inankaad soconna maadaaiyo meesha imikuu socod mayso waa caadiya socda dhaf waa tii teedii dhagaartii god had jabiseene goday intaad ku qabateen odayaasha u barideen aad arrimo ku goyseen halkaa ha la isugu tirataan maantana bolol baa tahan dib u qaban waxa weeyaan dhaqaaq weeyaan nin wallooba qaada alaabtada qaado nin dambe hayuu hadalka hadlay waxaa la yidhi biyadaad hor la qabtay leeyihiin On a coutume de dire que l'eau se récupère tant qu'on la verse, pas lorsqu'elle est versée. laakiin markuu dhammaado ee biyihii ka dhammaado S'il ne reste plus d'eau dans le récipient, que veux-tu récupérer? markaa kuwani waa Les guerres d'autrefois, celles qui avaient pour enjeu les zones frontalières, c'était un peu comme cette eau versée que l'on ne récupérera jamais. Mais ces petites guerres où l'on se tire dessus de temps en temps pour des histoires de vengeance, où l'on tue quelqu'un parce qu'il a tué ton père ou ton frère, de celles-là, on en réchappe. C'est des guerres où l'on tue peu. Ce genre de guerre, c'est un peu comme l'eau qui se verse, mais que l'on peut encore retenir.
Mais comment remplir le récipient à nouveau? Au moyen des dédommagements pour le sang versé, et la paix pourra naître ainsi.